howlka dowladda hoose ee degmada Laascaanood waxaa lagu qabtay xaflad si heersaraa loo soo agaasimay. xafladda waxaa goobjoog ka ah qaybo ka mid ah ururada bulshada, isku duwayaasha wasaaradaha kala duwan ee gobolka Sool. dhankooda waxaa goobjoog ka ah gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire, duqa degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Maxamed Tarwale iyo xogayaha fulinta dowladda hoose Cabdiraxmaan Khadar Gaas. kulanka ujeedkiisu waxay daaranay taageerada khudbadda uu madaxweyne Muuse Biixi ka horjeediyay golaha wakiilada iyo golaha guurtida Somaliland, waxaana hadaladoodii ka mid ah sida waxaanu halkan madaxweynaha Somaliland khudbadaha uu ka jeediyay labada gole aanu ka taageeraynaa boqolkiiba boqol maaha marqure boqolkiiba boqol baanu taageeraynaa. aad iyo aadna waa u soo dhaweynaynaa, waana ku mahadsan yahay. xiiseynayay runtii hambalyo ayaan u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland. sidoo kale waxaan taageerayaa siyaasadda uu qaranka ku maamulayo ama uu qaranka ku hogaaminayo. runtii aad baan u taageerayaa, waana soo dhaweynayaa. sidoo kale adduunku imika wuxuu noqday policy, wax walba siyaasad baa lagu hagaa. ka gobol ahaan inaynu ka qayb qaadano khudbaddii madaxweynaha ee sanadka ee uu kaga hadlayay golayaashu khudbad qurux badan bay runtii ahayd. khudbad wax badan taabanaysa oo meelo badan ka hadlaysa bay ahayd. waxay aad u mudan tahay khudbad raaligelin iyo mudnaansho waxaanu taageeraynaa axsaabta ururada badan, xisbiyada. weliba haddaanu nahay gobolka Sool, te markii hore ururada muddadii la sameynayay waanu ka maqnayn. maanta waxaa moodaa in gobolka madaxweyne Muuse Biixi uu daneeyay biixi cabdi muxuu hayo ka soo jeediyay khudbadii muxuu hayay sanadlaha ahayd. runtii waxaan oran karnaa khudbadaasi waxay ahayd khudbad xasaasiya oo dhammaan dadkoo dhan wada sugayeen. muxuu hayay oo muxuu hay loo wada muxuu hayay khudbadaas oo la wada sugayay. waxaan oran karnaa waxyaalihii ugu muhiimsanaa uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa laba sanadkii muxuu hayay waxyaalihii uu qabsoomay. khudbadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay labada gole, khudbadda ku saabsaneed siyaasadda dawladda uu ku hogaaminayo 5 sanadood ee soo socda ama muddaxileedkii madaxweynaha la doortay. baynu taageeraynaa siyaasadda madaxweynuhu qaatay ee uu dalka ku hogaaminayo. haddaynu nahay bulshada reer Laascaanood iyo bulshada degmada Laascaanood ku nool, inaynu taageerno siyaasadda, inaynu madaxweynaha ku bogaadino. waxa kale oo bogaadina waa inuu halkan hambalyo uga dirno madaxweynaha in madaxweynuhu ku dhawaaqay ururadii siyaasadda in la furo. waxay la tahay dalkan inaga iska leh, ilaahay baa inagu beeray. maanta iyo maalinteenu Ingiriiska xornimada ka qaadanay 1960 16 June iyo maanta inagoon baa deganeyn. waxay la tahay Somaliland waa dal xor ah oo xoroobay. saynu la wada socono taariikhda waqtigan lagu jiro markii wadankeena aynu Ingiriiska xornimada ka qaadanay 35 wadan baa ictiraafay Somaliland. maanta waa 20 February waa bishii 2020 waa maalintii dhalinyarada Somaliland loo asteeyay. dhalinyarada guud ahaan Somaliland ku nool hambalyo u diraya dhalinyarada. waxaan leeyahay hambalyo tood. waxaan leeyahay shacabka gobolka Sool sida aad uga mahad celiseen khudbadii madaxweynuhu ka soo jeeday qiimaha badan ee meelo badan taabanaysay, arrimo badan ka hadlaysay, siyaasadda iyo wax walbana bayaamisay. sida aad u taageerteen baan anaguna maamul ahaan iyo gobol ahaan u taageersanahay. waa Farxaan Maxamed Caydiid, wararka TV-ga caalamiga ee bulsho Laascaanood.